dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa waxa la soo gaarsiiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen ururka Khayraad. Deeqdan ayaa waxa soo dirtay gudoomiyaha ururkaasi Faadumo Saalax Warsame. Ururka Khayraad oo fadhigiisu yahay wadanka Australia gaar ahaan magaalada Melbourne, waxaana halkaasi deeqdan ku gudoomay dad masaakiin oo bisha barakeysan ay rabadaan si weyn ugu baana. Raashinkan ayaa waxa lagu siinayay dadku sida ay u kala jilicsan yihiin, waayeel iyagu qaarkood indhahan waxba ka arki karaynin ayaa halkaasi ka qaadanayay raashinka, waxayna si weyn ugu mahadnaqeen gudoomiyaha ururka Khayraad Faadumo Saalax Warsame oo ay sheegeen in had iyo jeer ka qayb qaadato waxqabadka gobolka Sool. Dadkan danyarta ayaa duruufi waxay ka muuqatay wajiyadooda iyagoona u baahnaa gacan intaasi ka ballaaran in la soo gaarsiiyo. saad arkaysaan raashinka maanta halkan aynu ku bixinayno siiyay waxa weeyaan hablo walaalaheena oo ku midoobay ururka la yiraahdo Khayraad oo fadhigiisu uu yahay wadanka Australia. run ahaantii hablaas walaalahooda reer Laascaanood ayay waxay la jeclaysteen khayrka bisha Ramadaan inay soo gaarsiiyaan, waana soo gaarsiiyeen, waana uga mahad celinaynaa aad iyo aad. saa darteed iyagoo aniga soo wakiishay waxaan ku wareejiyay culimada diinka gobolka oo Sheekh Mubarak Koradool uu ka mid yahay si dadkii loogu talagalay loo gaarsiiyo. waadna arkaysaan oo waa Sheekh Mubarak ayaan hadda ku wareejinayaa. aad uga mahad celinaynaa dadka walaalaha ee u soo gurmaday, dadka baahan ee masaakiinta ee walaalahooda. marka dadka kale ee runtii qurbaha ku maqan ee gobolka waxaan ugu baaqaynaa sida hablahaas walaalaha ah iyo dadkii ka horeeyay ay sameeyeen in magaranaysa ay isugu daydaan oo magaranaysa dadka ay bisha Ramadaan waa baahan yihiin ay runtii u soo dadaalaan ayaan faraynaa insha Allah ta'ala. iyagana waxaanu leenahay ilaahay ajar iyo xasanaad ha idinka siiyo, khayrka iyo wanaaga aad baxsateen. gabdhuhu runtii aad iyo aad bay ragga uga naxariis badan yihiin marka la eego iyo danqashada dadka tabaalaysan. marka dadkan qaybihii bulshada oo dhan ka kooban yahay halkan loogu qaybinayo maanta raashinkan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, idinkana ilaahay ha idinka abaalmariyo. xasan maxamuud baahi culus oo weyn baan u qabay kuwiina siiyay ilaahay baan waxaan uga baryaynaa ajar iyo xasanaad ka culus buraha inuu ugu bedelo. waa u mahad ilaahay baan mahad iyagana ugu mahad celinayna khayr oo khayraad baan u leenahay. waxba ka arki maayo lagu hawaala ahay. waxaan ahay dadka muslimka iska nool gacan bila aadniga gacanta ilaahay baan ku noolahay maartay in waxba qabsan kara mihi. gabdhahaana ilaahay waxaan uga baryaynaa khayr oo khayraad ilaahay khayr si uga baryaa ajar iyo xasanaad iyo dambi dhaaf. wax khayr qaba ilaahay iyagana ha barakeeyo, iyagana ilaahay ha ka abaalmariyo, idinkana khayr Allah idin siiyo. waxa la siiyay barwaaqada sidee ugu filan timirtii sharaabkii سريد سنكرتي فريد دقيقتي كور قوسكاga sidee waa u barakaysiya inka soo daan xaas ahay qoxoonti noo yimid hadan qoxoonti dadkii barakacay ii yimid ee waa barakada ya xagga hal kale isku laayay ee ka soo barakay haahay ilgaadan daad baa la yiraahdaa. inta iga waran waxaana la siiyay raashin fiican oo Ramadaanta nagu filan. ilaahay ha noo calfo, kuwii noo soo dhiibay iyo kuwana siiyana ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo. wuxuu ka kooban yahay 3 shub oo raashin oo kala wareegsan, 2 kiilo oo timira, taasad sharaaba, agad saliida. waanu u mahadnaqaynaa agoomaana meesha u nimi soo kacay soo barakacay ayaanu u nimi iyaguna si sharaf leh bay hadirto ay ii siiyeen. waanu ducaynayaa kuwii keenay iyo kuwana siinaya iyo والله waa loo qabaa ilaahay anoo calfo. ruurtu waa agoon 12 ciyaar weey abahoodna waa dhintay anigu ayaydood baana. Cabdikariin Olol, Somali Channel, magaalada Laascaanood.